maxaa uu qofku u buurnaadaa marka uu guursado? Cilmi-baadhis laga sameeyey dalka Maraykanka ayaa daafurtay in korodhka buurnida ee dadka xaaska lihi mar walba ka badan tahay korodhka buurnida dadka aan xaaska lahayn. Majallada Obesity-ga oo ka faaloota cayilka ayaa qortay natiijada daraasadan oo sheegaysa in buurnida mar walba ku korodho xaasleyda oo ay raggu u badan yihiin. Daraasadda ayaa sababta buurnida ku sheegtay in qofku guurka dabadiisa nafsi ahaan xasilo iyo cuntada uu cuno oo aad u korodha, gaar ahaan marka ninka iyo xaaskiisa saxan keliya cuntada ku wadaagaan. Waxaa kale oo ka mid a sababaha ay daraasadu sheegtay in ninka iyo gabadhu guurka kadib inta badan naftooda iloobaan oo aanay ka fikirin jidh dhiskooda. Waad ku mahadsan tahay daawade, waxaana tahay qof muhiim noo ah. Halkan kala soco buugata daraasadaha maqaalada iyo qormooyinka muhiimka ah oo dhegaysi ah ama naqal ah. Nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta buug maqal. Barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadad ka heshay, lana wadaag bulshada.